mobilkan waa touch screen. haddaad ka isticmaali jirto mobilkaaga gacmaha ama faraha hadba waxa u taqaano, hadda sheekadu waxa ay maraysaa inaad mobilkaaga ku isticmaali karto labadaada indhood oo keliya adigoon meel taaban. video ka horeeyay waxaan kusoo weydiiyey dhammaan asxaabta igu xiran su'aal ah, suurtagal ma tahay in mobilkayga touch screen-ka aan ku maamulo karo labadeedii indhood? dadka qaar waxay dhaheen haa waa suurtagal, halka dadka qaar ay dhaheen suurtagal ma aha. laakiin videogan waa suurtagal. aniga ayaa indhahaaga kugu tusi doona adigoo indhahaaga ku isticmaalaya mobilkaaga touch screen-ka ah. uma baahnid inaad taabato meel ama kilig aad siiso ama aad lambar wacato. shaqooyinka gacanta ay qaba jirtay waxaa qabanayo isha. sensorka qaabilsan ee mobilada ku jira waxaa loo yaqaanaa eye sensitive. si gooni ah iyo sharaxaad dheer ayuu rabaa, laakiin jahwareerkaas ma raba inaan kugu diro. waxaa rabaa inaan ku fahansiiyo marka koowaad bal qaabka ay u suurtagelayso in labadaada indhood aad kula xiriirto mobilkaaga. aan ka codsano marka kaamiradan hadda iga daawanayso oo kuu soo gudbinayso videogan quruxda badan inay bal soo dhawaato si aan kuu tusiyo xaqiiqda saxda ah, kadibna qaabka loo sameeyo aan ku tusiyo. marka koowaad aan ku tusiyo anoo ku isticmaalayo labadeeda indhood. kaamirooy kaala waxyar. waaya saaxiibayaal, sida u jeedid mobilkayga waxaa dhex socdo falaartaas waxay wadataa gan madow. hadda mobilkayga ayaa indhaha kula xiriiri doonaa. waxaan garaacayaa tusaale kale eber, kadibna 6, kadibna 1, kadibna 8, kadibna 9. tusaale hadda mobilkayga sida u jeedid waxaan ku tusay iyadoo lambar la garaacayo. bal aan application doorto. qaybta apps-ka ayaan tagayaa, kadib waxaan ku dhufanayaa messenger. markaa qaybta messenger ku dhufto, kadib waxaan doonanayaa qofka aan rabo inaan la hadlo. tusaale qofkan ayaan rabaa inaan la hadlo. si qofka oo la hadlo marka waxaan sameynayaa anigoo indhahayga isticmaalayo qaybta message-da ayaan click siinayaa anigoo indhahayga isticmaalayo. kadibna salaan ayaan u dirayaa haddii aan rabo. waxaan leeyahay tusaale kale assalaamu calaykum. tan farsamada hadda aad aragtay oo anigoo indhahayga kula xiriiraya mobilkayga ayaa rabaa inaan ku tusiyo bal qaabka loo sameeyo. waa ujeedeen wax farahayga ma isticmaalin, kaliya gacanta ayaa ku hayay, kadibna indhahayga ayaan kula xiriirayay mobilka. aan ku tusiyo adna sida ula xiriiri lahayd indhahaaga mobilka. farsamada intaan ku tusin ka hor waan ujeedaa aad ayaa uga heshay, fadlan la garay ayaan ku leeyahay. okay, aan kuu bilaabo farsamada iyo sida u eg tahay si aad bal u ogaato qaabka ula xiriiri lahayd mobilkaaga labadaada indhood. waaya saaxiibayaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego bal qaabka u sameyn lahayd. waxaa jira application kuu fududeynaya inaad mobilkaaga indhaha kula xiriirto. applicationkaasi Play Store ka tag, kadibna la soo deg applicationka loo yaqaano EVA Visual Mouse. install taabo. daqiiqad kadib waa uu kuu soo degi doonaa applicationkani. waa mid kuu suurtagelinaya inaad mobilkaaga indhaha kula xiriirto. asiga dhan waa 25.14 MB. bal sidee loo isticmaalaa? waaya markii sidantan kuu marayso aad la soo degto applicationka, kadibna taabo open. markii aad taabato open oo applicationka aad soo degsato, qoraalkan yar markuu kusoo saaro taabo continue, kadibna taabo allow permission, kadibna okay taabo, kadibna continue sii taabo, allow dheh, taabo open accessibility settings. fadlan qaybta hoose u wad installed service taabo, kadibna waad kana kan ugu hooseeya asna taabo, qaybtan kale tig ka soo saar, okay taabo, dib u laabo. cajiib. kadibna enable taabo. hadda wuxuu u diyaarsan yahay mobilkayga inaan kula xiriiro indhaha. tusaale haddii aan dib u laabto, applicationka waa kana uu isoo degay. markii aan furo sida tan ayuu u egyahay.
automatically qaabkan ay u shaqeynayaan. fadlan haddii marka aad rabto inaad indhahaaga kula socoto si fudud, hadda waa ujeedaan falaarta ayaa indhahaaga keli ku siinaysaa. tusaale applicationkaas hadda waxaan kula dhufta anigoo labadeeda indhood isticmaalayo. haddii aad rabo inaad install taabto, keliya anoon taaban farna saarin ayaa falaarta indhaha keli isku siinayaa. waxaa isticmaalaysaa waa labadaada indhood, hal mar ayaa isku qabanaysaa labada indhood. haddii aan rabo inaan cancel taabto, cancel ayaan leeyahay, dib ayuu u laabtay. haddaan rabto inaad dib asiga dhan uga laabato, tartiib calaamadaas geeska taabo, si ujeed waa ka wada laabtay. haddii aad rabto marka in applicationkan oo kale soo degsato sida YouTube oo kale, ishaada biriq qasi, kadibna update ayaan ku sameynayaa, bal ila fiiri. qaabkaas ayaa loo sameeyaa haddii aad rabto mobilekaaga inaad indhaha kula xiriirto. sidaas la mid ah haddii aad rabto qaybta appiska inaad tagto, wax fudud weeyaan. waxaa ku tagaysaa labadaada indhood adigoo hoos u dhigaya ama kor u qaadaya. hadda labadii indhood ayaan saarayaa. marka labadii indhood saara kadib wirig ayaan siinayaa. marka aan rabo inaan gedgediyo qaybtan hoose ee ujeedid ayaa marba mid taabanayaa. tusaale tan ayaan click siinayaa, waa uu wareegay. ka aad rabto ayaad ku dhufan kartaa. aniga haddaan waxaan ku dhufanayaa Facebook oo kale ayaan ku dhufsanayaa anigoo isticmaalaya indhahayga. si ujeedid falaarta ayaan isticmaali doonaa. sidoo kale haddii aad rabto inaad lambar ka wacto oo kale, qaybta phoniska ayaan tagayaa anigoo indhahayga ka dooranaya. qaybta phoniska markaan tago oo kale, waa kaasaa kelig ayaan ku siinayaa. lambarka aan raba ayaan wacanayaa. tusaale kan waxaan leeyahay eber, kadibna waxaan leeyahay 6, kadibna waxaan leeyahay 1. lambarka markaa wacdo kadibna okay ayaa taabanaysaa adigoo isticmaalaya indhahaaga. sida ujeedinba hadda waxaa isticmaalaya waxa ay tahay labadeeda indhood. qaybtan kore waxaa kaaga soo muuqan doonto camera yar oo la soconayso labadaada indhood. haddii hadda aan rabo inaan damiyo oo kale, tartiib qaybtan hoose geeska oo hoose ayaa imaanaya anigoo isticmaalaya labadeeda indhood, kadibna falaarta ayaa indhaha isku qabanaya. markaad labada indhood isku qabato ayuu ka bixi doonaa. falaartaasi waxay la socdaa kaamiradan ee la socon doonto labadaada indhood. isku soo wanaagsan saaxiibayaal, waan filayaa inaad aragtay farsamada iyo qaabka loo sameynayo. aan kugu dareeyo mobilka markaad ku isticmaalayso labadaada indhood iyo markaad ku isticmaalayso gacantaada, waa farqi weyn ayaa u dhaxeeyo. farqiga wuxuu yahay markaad ku isticmaalayso labadaada indhood, xogaha shaqadu waxay noqonaysaa mid yara daahda. marka aad ku isticmaalayso farahaagana, shaqadu waa degdegsiimo. 2022 ayaa la rajeynayaa in isbedel lagu sameeyo lana fududeeyo isticmaalka mobilada indhaha. waad ku mahadsantihiin saaxiibayaal daawadashada. saaxiibo badan oo adiga kula saaxiib ah ayaa arkin ogeyna farsamada inay jirto. waxaan kaa codsanayaa 100% inaad video la wadaagto adigoo taabanaya calaamada hoose share, sidoo kalena suurtagelinaya in asxaabtaas gaarto. waxaan sidoo kale kugu darayaa suurtagal ma tahay inaad mobilkaaga kula xiriirto ama ku isticmaasho qaab ishaaro ah. hadda waxaan ku tusay mobilkaaga inaad ku isticmaali karto indhahaaga. suurtagal ma tahay inaad mobilkaaga ishaaro kula isticmaali karto? ishaaro haddii suurtagal tahay qaybta hoose commentiga la soo wadaag. suurtagal miya mise ma ahan, waan kula soo wadaagi doonaa. ha iloobin in la wadaagto videogan asxaabtaada si uga faa'iidaystaan una ogaadaan sida aan kula soo wadaagay. haddaba waxaan kaa sugaa waa inaad la wadaagto saaxiibadaada. guul wacan ayaan kuu rajeynayaa.